taageero ah oo aan rabay inaan halkiinan idinka uga mariyo nabadeyntii iyo xaajadii lagu soo dhameeyey colaadii ka dhaxaysay labada beelood ee walaalaha ah ee Bahara Samay iyo Khayr Cabdi lagu soo gabagabeeyey magaalada Dharkayn inaan halkan taageero iyo tilmaan iyo ducada insha Allah taala aan uga mariyo marka hore waxaan insha Allah taala rabaa in aan baweyne aan uga mahad celiyo hawsha uu soo ururiyay culimadii gacanta ku haysayna xaajadan loo igmaday salaadiintii deegaanka iyo kuwii dariska ee u gurmaday xaajada la qabtay intaba inaan ilaahdo jazaakum Allahu khayra jazaa ilaahay miisaankooda xasanaadka ha ugu buuxiyo labadii beelood dhibku uu dhex marayna in aan insha Allah taala ilaahdo xaajada soo dhamaatay la soo kufiyay ilaahay duu ku rooyahay tolku u kacay dhibaatada faraha badan labada dhinacba ka soo gaartay dadka faraha badan ay ku dhinteen dad badan ay ku dhaawacmeen dad badan ay ku barakaceen maanta mar hadii meel la dhigay inay meesha wanaagsan la dhigay iyo dhamaadka la soo dhameeyay inay ku ilaaliyaan inay dhinacyada iska taagaan inay dhalinyaradooda xakameeyaan dadkooda wacyi geliyaan in intii dhibaatada soo gaartay ay si toos si gaar ah u ogaadaan oo ugu ilaaliyaan nabadgelyada oo ugu wacyi geliyaan xaajadana aakhirka ay noqonayso hadba iyagu sida ay ka yeelaan hadba sida ay u qaataan nabadda hadba sida ay u ilaashadaan hadba ciddooda dhibaatada wada sida ay u qabtaan in ay xaajadani ku soo ururayso hadday u dadaalaan oo labada lugood iyo labada gacmood iyo ilkaha isugu geeyaanna insha Allah taala ilaahay waa la qabanaya hadday iyagu dayacaan ama xaajadani ayan ka bislayna cid kale u dhamayn karaysa ma jirto waxaan kaloo u sheegi lahaa haddii balaayo kale oo aan la ogeyn ay ku jirto oo dhibka ay wado oo iyaga aan ahayn inay kor ugu dhawaaqaan oo ayan qarsan baladaad qarsataa waa ay ku qarsataa haddii iyaga ay tahayna in ay iska qabtaan haddii iyaga cid kamid ah ay dhibka wado ama ay rabto inay soo celisana in ay kor ugu dhawaaqaan haddii cid kale ku jirtana ay kor ugu dhawaaqaan hadday xaajadu iyaga tahay ay dhamaystaan oo ilaashadaan ilaahayna waxaan ka barilayaa dadkii dhibaatada soo gaadhay inta dhaawacana inuu u boogadhayo intii dhimatayna uu u naxariisto ehelkii dhibaatadu ay gaartayna in uu ka samarsiiyo oo quluubtooda uu xumaanta ka saaro wanaagna uu isu geliyo labada beelood dhibaatadoodana uu insha Allah taala halkaa uu ku soo afjaro ilaahayna saasaanu ka baryaynaa intii wanaag uga shaqaysayna in ilaahay ajar iyo xasanaad uu ugu karo wanaagooda ilaahay uga baryayaa arrintaasaan Cabdirashakuur idin soo wacay waana ku mahadsantihiin aad iga qabateen garad adaa mudan su'aal kale haddii la xidhiidho oo ku weydiiyo arrinka fariinta iyo baaqayo hambalyada aad u dirayso dadkii beelaha ku dagaalamay deegaanka nabadda laga gaadhay xilligan مسؤوليين تخاطمه أي حين واحد يكون سجين مجالات هرجيسة وعد هراء طاجة الجرات وهذا الله ده بحياة سومالي لاني يخاطمه وحنا رسول يا إن وتجي أفراد وكفر من مجالات هرجيسة كيسمهان كجرادهان سيد ورثة عبد الشكور وارون ورئيسي جدا ليان بحياة تلفزيون كان عن كسي داي iyo kuwii hore ee aan sii din jiray waxaan mar walba taaganahay hadeerna taagnahay siyaasadda waxaan nooga masuula hadaan nahay dadka reer Khaatumo maamulka Khaatumo iyagaana u daba fadhinaa iyagaana ka sugo u wakiilanay in ay dhibaatooyinka naga dhaxeeya maamulka Soomaaliland inay xal u raadiyaan wada hadalka waanu sidii aan hore ugu taageersanayn baanu u taageersanahay waxaanu sugaynaa go'aamada soo baxa ka hor dhici mayno go'aamada soo baxa ee maamulka iyagu uu noo keeno
ayaanu maamulka kala hadli doonaa wixii ka dhiman waxa lagu darayo waxaan ku jirin dheeri ku ah laakiinse weli kalsoonida iyadii bay haystaan iyagaa maamul iyo siyaasadda uga mas-uul ah dadka reer Khaatumo waxaanuna ku sugaynaa wixii aanu u idmanay aanu u diranay mira dhalka ay ka keenaan